Assalaamu calaykum. Astaamaha dadka guusha gaadha. Kow. Marnaba marmarsiyo lama yimaadaan. Haddii aad dhab ahaantii rabto inaad guul gaadho, waa inaad toojisaa cudurdaarada iyo marmarsiyaha aad uskanayso. Waayo waxba kama faa'iidaysid balse dib ayay kuu dhigayaan. Laba. U roonaanta dadka kale. Dadka nolosha guul ka gaadha waxay waxtaraan dadka kale waayo heerka ay gaadheen kuma aysan gaadhin keligood. Waxay ku gaadheen waxa ay tareen dadka kale. Waxay kale ku gaadheen caawimo ay ka heleen dad kale. U shaqo oo caawi dadka axsaantana. Iyo inaad dadka kale caawisid waxaad ka helaysaa ajar badan iyo inaad guuriyo horumar gaadho. Nabi Maxamed sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri: Allahu fi aawni al-'abd ma kana al-'abdu fi aawni al-akhiih. oo macnihiisu yahay Ilaahay ayaa qofka kaalmeynaya inta uu kaalmeynayo walaalkiis. Xadiiskan waxaan ka faa'iideysanaa in Ilaahay kaalmeeyo qofkii kaalmeeya walaalkii. 3. Shaqaan kala go'ol lahayn. Marka ay liibanayaasha ama guuleystayaashu u socdaan inay xaqiijiyaan diidilooyinkooda waxay u shaqeeyaan habeen iyo maalin si aan joogsi lahayn. Waxayna u dalaadaan mana caajisaan ilaa ay xaqiijiyaan waxay raadinayaan. oo ay u hamiinsan yihiin inay mar uun gaadhaan. Dadkani waxay toosaan habeenkii si ay u raadiyaan diidiladooda. Isla markaana waxaad arkaysaa iyaga oo subaxii kala haya oo arrinka raad guridiisa ku jira. Markasta iyo goor kastana waxay niyadda ku hayaan sidii ay hamigooda u gaadhi lahaayeen. 4. Kuma socdaan qorshe la'aan. Dadka guuleystay badanaa waxay leeyihiin qorshayaal siday u gaadhi lahaayeen hadafyadooda. Qorshe la'aan waxaad u nugushahay inay hakad galaan. Pablo Picasso oo ahaa sawirlayaashii ugu fiicnaa qarnigii 20aad wuxuu lahaa hadal xikmada oo odhanayay sidan: hadafyadeena waxa qura aynu ku gaadhi karnaa waa taayirka qorsheynta. 5. Ma dejistaan hadafyo aan macquul ahayn. Markay sameynayaan hadafyo way iska ilaaliyaan inay dejiyaan kuwa aan waaqaca khuseyn. 6. Ma dejistaan hadafyo iyagoon maanka ku hayn faa'iidada ugu jirta inay gaadhaan. Si aad naftaadu u ahaato mid diiran markaad dejinayso hadaf, waxaad u baahan tahay inaad garanayso faa'iidada kugu jirta gaadhida hamigan.